qof ay isjecelnahay yani mar walibana khilaaf soo taagan khilaafku taagan yahay mar ana xalinaay siiba ana xaliyo qisadani waa dhab waxaana inala wadaagtay gabar ka gaabsatay inaynu halkan ka sheegna magaceeda oo ku nool magaalada Muqdisho waxay tiri jacaylka halka dhinaca dhibtiisu badana waa xiriir jacayl oo qof dhabka ah midka kalena dhalanteed haddaba daawadayaal intaanan qisadan jacayl guda gelin bal aan hal iyo laba ka xuso sidaad inooga barateen qaar ka mid ah daawadayaasheenii toddobaadkii taga iyo fikradihii ay ka dhiibteen inagoo markasta idinkaga mahad celinayna sidaad inoola socotaan iyo afkaaraha saliimka ah ee aad dhiibanaysaan runtii aad bay inoo farxad gelinaysaa markaynu aragno dhalinyaro jacayl iyo wanaag ka sheekeynaya isla markaana isdhaafsanaya fikrado caafimaad qaba Princess Istahil oo la talinaysay Sahra oo ahayd dhibana jacayl ayaa tiri runtii waa qiso xanuun badan aad ayaan uga xumahay waxa ku dhacay gabadhan walaashayda ah Salman official ayaa isna yiri walaal waa qiso xanuun badan waxaan kugula talin lahaa inaad iska ilowdo Sterling Ilyas ayaa tiri waan ka xumahay walaal waxa kugu dhacay dugsiga aftax waaye qofkay ugu qoran tahay ayaa isna yiri mahadsanid ayaha nolosha TV waynu u baahneen channel sidan oo kale ah runtii waxaan ba soo xasuustay markaan Muqdisho joogay oo aan galbihii dhageysan jiray barnaamijyada arrimaha bulshada ah ee ka bixi jiray idaacadaha Muqdisho raaxo xasan ayaa iyana tiri ayaha nolosha TV waan ku cusbahay mahadsanid walaal mashalaysa xidigta Arsenal waa sports baan filayaa gabadhani waxay tiri anigu maba sugi karo intaad wax soo gelinaysaan anoo dhageystay ayaan haddana soo degsadaa oo waliba TV-ga ayaan ku sii daawadaa mahadsanid walaal maxamed ayaa isna yiri ma sha Allah waad mahadsantihiin bahda ayaha nolosha TV rumaan ina cadaani ayaa soo gabagabaysay oo tiri ayaha nolosha TV hore u socda qisooyinka aad noo soo deynaysaan waan bala dhacay waa tabintii shaacir haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha ku xirnaaw oo subscribe saar page-kan cusub ee ayaha nolosha TV inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka go'in xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya haddaba haddaan sii anbaqaado qisadani jacayl naftayda waxaan weydiiyaa bay tiri maxay ku doorteen dhalinta maanta khiyaanada iyo inay ka been sheegaan naftooda bal qiyaas bay tiri ruux ku dhahaya waan ku jeclahay haddana aadan ku arkayn hal calaamad oo xitaa muujinaysa jacaylka uu sheeganayo muddo waxaan wada soconaa bay tiri wiil waxaana inaga dhaxeeya bay tiri xiriir jacayl haddana ma dareemo macaanka jacaylka maxaa loo dhahaa bay tiri jacaylka markaad keli ku noqoto waa qaraar markaad haysato jacaylkaagana waa macaan anigoo haysta ayaan haddana dareemaa bay tiri xanuunkiisa malaha been buu ila jilayaa muddadii aynu wada soconay wiilkan waxaan u qaaday bay tiri jacayl bedelay noloshayda oo idil naftuna isaga mooye aadmiga intaa la eg ogolaanba weyday fallaarihii jacaylkiisa oo fahayga gooyo olol aan baxayn baa uurkayga jiifa bay tiri haddaba jacaylka dhabta ah waa macaan jacaylka marka lagula wado waa wanaag jacayl haddaad keli ku noqotana waa wareer adduun waxay tiri haddii qalad yar uu iga dhaco ama aan soo dib dhaco xitaa marmarka qaar aniga oo aan waxba geysan ayaan maraa ciqaab daran waxaan waayaa mararka qaar isaga oo dhan maalmo teelka ayuu iga dansadaa aad baan u walwalaa bay tiri qalad kasta aniga ayaa xaalkiisa raadsha xitaa midka uu aniga iga galo aniga hadduu qalad iga galo ma ciqaabi karo sababtoo ah bay tiri jacaylka dhabta ah waa in qofka uu qalbigiisa ku wareejiyaa kan kale bilaa damaanad kana danqadaa wax kasta oo dhibaya uma dulqaadan kara bay tiri dhibtiisa haddaba waatan iyadoo ka sheekeynaysa waxayna asxaabta ayaha nolosha TV ee markasta garab istaaga u muujiya mucaashaqiinta ka codsatay inay la taliyaan أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن آية نلش TV يعني سلام يا إن هبي وناكسن إن حاربي وحير وطلع إن إسيسين إن شاء الله هذا عربنا إسيسين قف آية إسجعلها يعني مرولي بنا خلاف سوتين خلاف كوتاعي هاي مر أنا حلنا سيب أنا حليو كدب إنه أصلا هي لها لقيامة مرول بنا هدي قلد إيه دعلو يعني أنا وقلد حقي كده مرة تليفونك يقول يشتو إنه يعني الهلي وايو مقالها اللون أوله يعني أنا وقت مناسب هنا يسوى هذا والله وكوريري يعني كان يعني مرة بأس يعني حقي سبيل هذا
عقبت يعني بلان عمل لهن وإصابة أنا له ويجنبي يعني سكلوا إيه أنا قرد حقي مكو قلو ما يقاوي كرت يقاوي مركز أنا حسنا ما يقاوي كرت ساحين كما عقاوي كرتا مركز أصيب وايد أنا مركز يعني وهم سواي يقاوي حيث يعني أنا قرد حقي كمان وتنكري أنا يا بنا والله إن أيت المحسين رجينا إن شاء الله وحان يعني تلدينا هذيك أني صدرتي أني سي محاوة إن أتين قفك ضدك يعني فكر في عصية الله حارجينا تلدينا إنا هلا يعني متفيع نقطة أنا وشا من وجبتين فرحتكم هذا أنت يا سنتي أنت يعني فكر كان كنت ما شاء الله جعل كان جلست ولبسات